أحمد تيك توك waxay la yaabayeen jacaylkii 20 sano aan qabay jacaylkii Axmed Cagaweyne maya hooyo anagu lama yaabin jacaylkaaga Axmed Cagaweyne waxaan la yaabanay Axmed sidoo ku yimid guriyahayagii oo nagayna la qabo ee madaxa naga galay imika Axmed anigu waan garanay adiga soo baxaan anigu Axmed toos baan u garanaya boqol qof aan ka dhex garanaya ilaa 3 bilood baad bari 3 bilood muddo baan u baraysaa يا تذكر أحمد تنو يشتاق شريسان ما فلسان شرين هو أحمد موارد بها برا بشدة waxaa qabsaday أحمد hadaa ku dhaho waxa ka fiican Sarmaan yuu yahay hadaa ku sheego Sarmaan waxa dhahaysaa Sarmaan boqolkiiba boqol ka fiican Axmed magacaagana hadda aad dhahaysid Axmedan iska dhigaya waxa uu maleynaa in aad Sarmaan ku bedelatid ana hanti Sarmaan iska dhigi lahayd maadaama Sarmaan uu wanaag sameeyay qiso podcast barnaamijyadeena waxaa kala socon kartiin Spotify iyo YouTube kusoo dhawaada qiso podcast Ramadaan ku sii dhamaanaya marka Axmed wuxuu qabsaday baraha bulshada qabsaday hadaan ku dhaho Axmed waxa ka fiican Sarmaan waxa ay dhahaysaa Sarmaan uu yahay laakiin muuqaalkan maanta ayaan kaga sheekeynaa Sarmaan qofka uu yahay Sarmaan waxa nooga sheekeynaa qof qiso ku soo dhacday oo qisadaasna ay ahayd qiso xun marka Sarmaan markuu nolosheeda ku soo biirana ay noqoto nolosh uu fiicneed oo qof bil aadan ka sheekeeyo oo yira noloshaas ayaa soo martay hore noloshan ayaan haystaa alxamdulillah ku hayn Axmedna ogtihiin maamada hadda ka sheekeynayso Axmed inuu isku fiicnaayn kood hore kadib ay kala tageen dhibaato iyo waxba kala dhacay inuu Axmed la guursado kale marka Axmed wuu fiicnaay laakiin qalad uu sameeyay وكتاج ودايعي فاميلكيسي لكن Sarmaan wuxuu wanaajiyay qof dhibaato ka soo baxay Sarmaan yuu yahay Sarmaan markuu waxa nooga sheekeynayso maamadan nooga sheekeynayso qisadii horta soo martay kood hore nooga sheekeynay kadibna Sarmaan yuu yahay asla dhageysano dhaqan baa i qabay waaya hore dilay jirkaygii diric baa i guursaday hadeer deeqay gacalkii dambi ku hadli maayo Sarmaan waan ku diirsaday waxba yoona mara daaba caliga dahab ii xidhi waxba yoo dukaaniye camirir tarafo khiyaale waxba yoo sandeeqii i dhalay dunya wacan siin dambi ku hadli maayo Sarmaan waan ku diirsaday marka Sarmaan yuu yahay Sarmaan waa qofkaas oo jeedid oo intaas soo wanaag yani laga sheegayo oo la dhahayo Sarmaan kuma siisanayo dunyada yuusan haysan lacag badan yuusan siinu familkayga waalidkayga laakiin Sarmaan waa qof fiican qof qalbi fiican waaye familkiisu u roon qofka nolosha uu la wadaagana u roon maamada qisada ka sheekeynaysa Axmed dad badana waxba qalad ka sameeyeen oo maadsi maamada waxay tiri maadsiga badan iyo waxyaabaha ka sameynaysiin oo aad bedelaysiin qisada ayada si emotional uga sheekeynaysa dadka qaar laakiinse waxay ka dhigeen inay qisada tahay qiso funny ah ana qalbigayga waa xanuujinaysin qofka Axmed si xun uga hadlo waa idin baryaaya please qof kasta oo bil aadana ayuu jacaylku ku dhacaa wax adduunyada ka jira jahil ha noqonin ribaadiyaha ha noqonin xaasid ha noqonin jalas ha noqonin noqo qof xabiiba oo wanaagsan soo qaatan Axmed muuqaalo yar ka soo sameeyeen qofku wuu jiri karaa waxba qurux badan laakiin inuu ku maadsado qisadii dhan ay maamadaas ka sheekeynayso sida ay u sheekeynayso yani waa qof qalbi ka soo hadlay sidoo kalena way aragnimadiisa ka sheekeynaya in adiga ka faa'iideystaa muhiim ah oo hadhowtiin waxyaabahaas aad ku fikirtid adiga kugu dhici karaan maanta waxa laga yaabaa qof wanaag ku hayo inaad berri aad isla joogin hadhowtiin soo xasuusitid aad tirahdid qofkaas wanaag uu ii haya badan qofkaas qof fiican u ahay marka qofka markuu wanaag kuu sameynayo dhowro haddii kale maraa ka shalay doontaa qisada marka waxaan ka baranay Axmed waxyaabo badan ka baranay maamada ayna bartay qisadan Sarmaanna wuxuu sameeyo wuxuu u fiicnaay oo qof bil aadan sameeyo wuxuu sameeyay inuu wanaajiyay qof dhibaato jirdil iyo rafaad lagu hayay ayuu nolol cusub tusiyay oo kalgacayl cusub siiyay marka qofkiina wuxuu dareemay waxaan ku jira dhibaato rafaadan ka soo baxay waxaan maanta haystaa nolol aad iyo aad u farax badan nolol waxaan haystaa aad iyo aad u qurux badan marka noloshaas qofku inuu dhaho alxamdulillah markuu ka sheekeynayaan oo ka sheekeeyo sidii noloshaan dad badan ay u faa'iideysan lahayn labadan qiso waxaa fiican marka inaan ka dhex qaadano waxyaabaha muhiimka ah oo anaga wax noo tarayo
waa laba qiso oo cagsi isku ah sina haddii loo fiiriyo labadaba wanaag ayay ka sheekeynayaan labada maamooyinba laba wanaag ayay ka sheekeynayaan oo kala duwan oo kala waaye ah mid waa mid hore midna waa hadda taagan marka qof wanaag ka sheekeynaya haddaa aragtid waa laga qaataa oo waxyaaba badan ka baranay ahayd hadda qisooyinka in lagu qoro joornaalada iyo sidoo kale buugaag lagu qoro xataa way mudan yihiin maadaama ay dadka u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan dhalinyarada khaasatan tiktok iyo meelaha kale isticmaasho maanta barnaamijkan intuu isku egyahay ha mogaanina hadda kabacdi qiso podcast waxaan kusoo gudbi doonaa waxyaaba yar baraha bulshada ka dhaca sidoo kale qisooyin sheekooyin waxyaaba badan aad ka heli doontiin oo aan falanqeyn doonaa insha allah la socdo qiso podcast barnaamijyadeena waxaa kala socon kartiin Spotify iyo YouTube